السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركل السود وهذا أدي هذا ومهزنتهين سوماليات أو بوليسكا أنت أي جوري سكوتين مركي دنبنا isagoo meeyda ay yiraahdeen kaalay wiilkan meydkiisa qaata qoyskii Soomaaliyeed iskalaha arintan waxay ka dhacday gobolka Wisconsin. Haddaba wiilka hooyadiis oo Hinda Maxamuud Xandulle la yiraahdo ayaa qadka ku jirta oo aan rabaa bal inaan arrimahaasi wax ka weydiiyo. Maama bal soo dhawow waxaad warbixin iga siisaa sida dhimashada wiilkaada ay ku dhacday. waan dhawahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. waxay xaaladu ku dhacday walaalkayow maalintii maxaan ku wiilku meel buu deganaa maxaan ku dhiyay waxa uu yiri maalintii jimcadii ayuu isoo wacay waxaan ku ri saddexdii galabnimo wuxuu igu yiri hooyay afarta iyo barka galabnimo ayaan ballan maxkamadda kale ballantaasi maxkamaddu sidee ku timid marka maxay ahayd maxkamadda ballanta maxkamadda waxay ku timid maxkamadda waxaan ku kolkii hore naag baa dacweysay isagoo gurigiisa isagu iska gala ayaa gurigiisa habeen madow loogu yimid waxaa lagu yiri naag baa dishay cunaha qabatay. waa garta naagtuna maxay ahayd? naagtu waxaan ku iri waxay ahayd naag naag cadaan ay ahayd kiiskeedina wax alli iyo wax adduunyaale waxba waa lagu waayay muddo kolkay hadda ay socotay 9 bilood inay tahay aan jecelahay ayaa kiiskii aan waxaan ku lawyer baan u qabtay cishadii u horeysay lawyerkii wuxuu ugu yiri kiiskani inuu fudud yahay ayaan u malaynayaa oo sababtu tahay haddii uu adag yahay oo naagtaas uu ninkani wax yeelay lambar 1 markii ugu horeysay boolisku yimaadeenba waxaan ku iri waa la xidhi lahaa. marka naagtu maxay ahayd? naagtu ma naag cadaan aha ma naag Soomaali ah maxay tahay naagtu maxaa ka dhaxay? cadaan bay ahayd naagtu. maxaa ka dhaxay wiilkaada iyo naagtan cadaanka marka? naagtan iyo wiilka wax ka dhaxeeyay ma jirin waxaan anigu ogahay ma jirin isaguna waxaan ku iri waxbaan iga dhaxeeyay ma oran leeyahay. marka ma dad saaxiib ay ahaayeen oo mar meel isla deganaa oo wada socday sidee dacwada ilama in isla deganaayeen laakiin wixii dhex maray dadkan caruurta markaan kolkaad adigina aadan af aqoonin sidii ay wax u fahansiiso waa iska adag tahay marka waxba igala dhaxeeyay weligeey ay mu dhihin aniga. marka iyada dacweysay oo maxkamad ayuu ballan ku lahaa. way dacweysay maxkamadii saas markii la yiri waa dacweysan tahay maxaan ku ri lawyer baan qabtay $3,000 buu lawyer iga qaaday $3,000 waxaan rabaa inaan ku gabagabeeyo waana uu ku gabagabeeyay naagtiina waxa lagu yiri wax aliya wax adduunyaale wax ninkaas uu kugu sameeyay iyo wax dulmi ku geystay midna ma jirto halka ka baxbaa lagu jiro. waa xilliga ay dhacayso arintaasi oo wiilkaada la wax dambiye waa lagu waayay waa goorma? waxaan ku ri waxa weeyaan hadda bishan aynu joogno booye bishii hore ayaa la soo gabagabeeyay waxaan ku ri kiiskiis oo ahayd bishii 9aad. waa tahay marka wiilkaada waa xilliga ay boolisku inta u yimaadeen ay gurigiisa kala baxeen. wallaahi walaalkayow sanadkan hadda aynu taaganahay bishii 1aad iyo bishii 2aad labada midkood bay ahayd midtay tahayna waxaan ku ri qof iska xanuunsanayo maskaxdiisu ayna sidii rabay wax u qabanaynin baan iska ahay isagaasna murug badan iyo dhibaato badan uu igu hayay laakiin hadda bishii 1aad iyo bishii 2aad midkood bay ahayd falka guriga loogu imanayo. oo marka ilaa inta miyuu xirnaa marka mas inta la xiray ayaa la soo daayay? maya ma xidhnayn kiiskiisi saasaa lagu soo gabagabeeyay wax aliya wax adduunyaale wax naagtaas aad maxaan ku leeyahay kugu leedayna ma jirtaa la yiri laakiin waxaan ku leeyahay adiguna ha u dhawaan faraha ka qaad waxaan ku leeyahay saasay naagtaas kaga soo gabagabowday waxaan ku leeyahay dareeraha kol haday ku daba galaan wixii iska socdaay maxkamadani oo lahaa maxaan ku leeyahay ma wax kale ma ballanta u sii taalay sidaas ballanta maxkamadda maalin walba tagi jiray wax weyn oo sharab aan u qolkii uma qaadanin maxkamadda inuu tagayo. marka ma gabadha ma uu ii hanjabay miyay leedahay mise dhaawac uu gaarsiiyay oo muuqday ayaa jiray?
waagii hore waxay tiri cunuhii qabtay waxba markii lagu waayana sidaas qaraa looga qaadaan ku udhi wiilkaadu marka imise jir ayuu ahaa wiilkaygu wuxuu dhashay 2001 bishii 7 waa tahay marka arrintan markay dhacday kadib oo wax dambi ah lagu waayay arrintii markay sidaa tahay oo wax dambi ah loo haysta ayna jirin ayaa waxaan ku iri maalintii jamcadu soo wacay wuxuu iri 4:00 galabnimo ayaan hooyo leeyahay maxkamad waxaan ku iri hooyo waxaan rabnaa inaan guurno maxaan ku iri bal maxaan ku iri wixii jira aynu isu nimaadna imo oo waxaan ku iri waynu guuraynay 4:00 galabnimo oo hadda jimcihii la soo dhaafay miyaad ka wadaa jimcihii la soo dhaafay marka ma xilliga kuugu dambeysay xilliga wiilkaada aad wada hadashaan sug marka xilligaas kolkuu sidaa yidhi habeenkii waan ku celiyey waxba habeenkii oo dhan telefonkiisa waa ii dhici waayey maxaan ku iri aroortii baa ku celiyey waxa waa ii dhici waayey casarkii markaynu tukanay salaada casar oo maxaan ku iri maqribna ayna weli gaadhin buu isagu soo wacay haye muxuu ku yidhi wuxuu yidhi hooyo maxkamadii kolkaan tagay maxkamadii iyadoo xidhan oo ninkii aniga ay qaban lahaa uuni u kadinka taagan yahay ayuunbaa waxbaba layma weydiinina waa la qaaday waa la qabtay oo waa la xiray ayuu ku yidhi waa uu la jeebeeyey hal eraya baan weydiiyey maxaa dhacay waxaa la yidhi naagtii baa na soo wacday oo nagu tiri waxaan idhi maanaa wuxuu geystay mana la iiga jawaab celinin waa gartay magaalada aad degantiin waa magaalada Wisconsin xagee ka deganahay waxaan ku iri Wisconsin waxay ka tahay Green Bay aad degantiin wiilku ma adigu kula deganaa mise meel gooni oo deganaa meel gooni oo deganaa ilma deganayn 2 biloodaba waa tahay markii uu yiri waa la xiray oo waa la isii wadaa marka ayaa kuugu war dambeysay isii wadaa ma oran waa sabtidii habeennimadii sabtida oo dhan uu ku jiraa waa maalintii habeenkii waa qofkii casarkii maqribkii la qabtay casarnimadii daba weyn oo sabtida ahayd masaaxada ahayd oo sabtida ah waa gartay ma xilliga kuugu war dambeysay marka xil in wiilkaada galabtii sabtinimo weeye isagana jimcadii fiidnimadii sabtida soo galaysay baa kow u maxaan ku iri jeelka marka kuugu war dambeysay oo wiilkaada wada hadashaan markaasaa iigu dambaysay oo wuxuu yidhi hooyoy waan xidhanahay waxaan idhi hooyo ma kuu iman karaa wuxuu yidhi waan weydiin kolkuu weydiiyana waxaa la yidhi maya laguma iman karo waa tahay marka goormo ayaa marka lagu yidhi wiilkaadii waa mayd ee kaalaya soo doonta xilligan markay halkaas iigu dambayso isleeyahay dee axad iyo sabti weeye axadda kolkay baxdo uun dee meeshii dacwo laga gelaya aad ka geshid ayuunbaa 10 subaxnimo oo axad ah unba albaabka laygu soo tumay haye ma boolis baa ku imaanaya haye maxay ku yiraahdeen booliskii kolkay yimaadeen waxaan idhi waa maxay waxay yidhaaheen waxaan ku wadnaa war xun wiilka agi Cabdullaahi waa dhintay oo sabab muxuu ku dhintay markay kugu yiraahdeen maxay sabab ay ku sheegeen wiilkayga Cabdullaahi waxaan ku iri waxa uu ii sheegay inuu xidhan yahay maalintii jamcaha maxaan ku iri maqribkeedii la qaaday habeenkii sabtidana uu jeelka bariyay maxaan ku iri dee hadduu dhintay idinka unbaa dilay baan idhi haye sababta uu dhintay ma kuu sheegeen muxuu u dhintay ku yidhahdeen wuxuu yidhi wax ilaahay abuuray annaku maanaan dilin wuu iska dhintay laakiin haddaad faahfaahin kale u baahan tahay lambarkan halkaas ku tag lambarkaasi meeshuu ku geeyo ayaa xaaladiisa kaaga waramaysa wiilkaadu caafimaad ahaan wuu wanaagsanaa oo wax xanuuna ma uusan qabin soo ma wiilkayga wuu caafimaad qabay noloshiisana isagoo xanuunsanaya weligii hargab xanuun ka badan kuma dhicin noloshiisa isagoo buka lama arkin nambarkii lagu siiyey ma wacday marka ma tagtay halkii meedkiisa la geeyay nambarka lagu siinayo daqiiqadiiba waxaan tagay bartii lambarkii la siiyey haye maxaad soo aragtay kolkaan tagnay waxaan ku iri waa nala soo qaabilay albaabkii waa nalaga furay waxaan ku iri waxaa la yidhi meydkaa la yidhi tusi away dadkii waalidka ahaa labadanadii ilmaha dhalay iyo maxaan ku iri sheekii masaajidka waxaan ku iri mas'uulkiisa ahaa iyo nin maxaan ku iri
maxaan ku dhihi dhalinyarada wax baratay oo waxaan ku dhihi hadalka active ku ah afartanadaasaan galnay waa garta waa la idin tusay meydkii wiilkaada marka waa lagu tusay halkii aan kolkii hore saana lagu geliyey dadku iyo eheliyadii ay moodayeen in annaga waxaa naloo kaxaystay ay tahay inaan meydkii nala tusayo meydkii nalama tusin sheeka bereley kale unbaa naloo gala oo la idin leeyahay waxaan ku dhihi waxaa lana leeyahay qalitaan wuxuu noqonayaa maxaan ku dhihi lama huraan maxaan ku dhihi ninkan wuxuu lagu dilay anigaba sidaad u shakisantiin baan u shakisanahay baba imikana warqadaas kaga soo jawaaba waa salaadii duhur waxaanu ku tukanay masaajidka kolkaasaanu ka dhaqaaqnay intuna gobolku dhicin warqadaa waxaad kaga soo jawaabtaan waxa maxaan ku dhihi qalitaanka Cabdullaahi Fadxi aad kaga maxaan ku dhihi idinkala quman